siyaasiga Soomaaliga ah odayga ka baqabiilka ah ka wasiirka ah ka dhaqanka kulligood sarkaalku mid walba wuxuu rabaa inuu banaan fadhiyo islaantiisa qoraayna u yeedho shaqadiisana uu iska qabto meesha uu barkantiyo soo lama garanayo miyaa madaxweynihii jamhuuriyadda oo tuuta qaba oo banaan taagan oo inta dagaal ku socda iyo waxa aan ka shaqeynayno sawsa ayaan daramaha qofka siyaasiga ah ee mustaqbal Soomaaliya inuu shaqo ka qabto raba madaxweyne ka noqdo ee maanta carqalada ku noqonaya hawlgalka iyo waxa lagu jiriyo wadanka in la xoreeyo u arka xasan sheekh inuu ka faa'iideeyo inuu isagu kursiga sii joogo ay u noqoto legacy ayna ahayn kursigu raba inuu sii joogo ilaa shabaab ka haysto wadaalkiisa la wada fashilinayo waxaan leeyahay madaxweyne Soomaaliya baa kugu xidhan waana ku garab taaganahay shaqadaana inaan banaan u istaagnaano qofka siyaasiga ah ee Soomaaliga ee mas'uuliyad raba inuu wadanka ka sii qabto bilaa calayk bashabaab oo joogaad ku riyoonaysa inaad mas'uuliyad qabato warshalay markaan taalooyinka dhisayna ee la lahaa geesiyay Sayd Maxamed Cabdullaahi Xasan waraw Axmed Gurey wargabadha xawataa ka ahayd awal war away dhagaxtuur taalo la dhisay awal Sheekh Bashiir marka la taalooyinka maxaa looga jeedo maxay macno qola gaar ah la dagaalamay guweysa isku xoreynayna Soomaaliya war kuwan inxiraafka sameynaya ee diinta Ilaahay ka leexday ee saxaabadii mubashiriintii Ilaahay jannada ugu bishaareeyay dhiigooda banaysanaya khawaarijta iyo kuwa xanaanid weydiin markaan kuwan ka gaabsanayno qofka wax sheegayo maxaa dadka u sheegaysaa waxaan ku talin lahaa siyaasiga Soomaaliga waliba qolada qurbo joogteen waxba ka ogeyn intay biil qaadato hadana noqonaysa inta oo imanaysa hadana ama Starbucks-kiina hadda waa la isla bartay joog waagii Soomaaliya la qaxayay baan gaaristaynay bala fakaada leeyahay Soomaaliya laga aqoon baan baran waagii daba qolo kale Starbucks way doo keentay hadda TikTok iyo waxyaalaha qolada nadiga weeyaan garanay iyo maxaa la yiraahdaa baashan social media cayaanka baraha bulshada iyo lagu ciyaaro waxaas hadda dawladnimadu ku soo dhamaatay aan ku noqon aan garab istaagno dawladnimadaas aan madaxweynihii baa wadanka jiray xaaladda inuu wadanka ku jiro aan u diyaar garoon reer Jubbaland waxaan rabnaa inaan isku tashano oo dagaal galno war dawladnimadii Soomaaliya shantii sano hadda 60 sano la soo dhaafay gobolka Gado oo kala maanta 80% amniga aan anu dhisay dawladda Soomaaliyeed baa burburisay saaka wiilasha aan ay hadii intaan dagaal galayna saddex meelood aan qabto see loo haynayaa meel inaad xoreysay inaad hayso koodeesa muhiimsan haddaad hayn weynaad ku baabiso haddii dawladnimadii Soomaaliya maanta xasan sheekh wuxuu sameeyay shalay isaga ugu dambeeyay maanta diyaar tahay madaxweynahana waan garab istaaganahay taakulada uga baahanahay inuu ballan qaado inuu sameeyo siyaasiga Soomaaliya mustaqbal siyaasadeeda kala hor war shacabku ha ku qiimeeyeen dagaalka shabaab qofku waxa uu ka qabtay shacabku ha ku qiimeeyeen madaxweynaha banaanka taagan ee ordaya ee gaariga qaraxa loo dhigayo danta uu leeyahay inay tahay legacy uu ka tagay inay nahay Soomaaliya xor oo ninka ka dambeeyay askari Amisom uu ilaalinay wiil Soomaali uu ilaalinayo gurigiisana uu joogo hiskooda faraha badan iyo dhaxanta badan la dhigayana laga qaado meesha aan ogaano wadanku inuu xaalad dagaal ku jiro madaxweynaha waxaan ku leeyahay saacadda dagaalka markii lagu jiro sarkaalku mid la toogtiyo mid la dilacsiyo noqdaa mid la eriyo mid shaqada loo sii kordhiyo noqdaa golaha wasiirada xataa haddii ugu noqotaan yaa wasiir oo saameyn dagaalka kule yaan ku lahayn hal la yidhaah oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu intay dib uga fakeraan wasiirkan aad qaadanaysaa muxuu dagaalka kusoo kordhinaya teennana waan ka bilaabayna wasiirro badan oo halkan joogaan dhaqdhaqaaqi karayn hadda waan ka takhalusayna waxaan leenahay yaa dagaal geli kara nin walba intuu saameyn ku yeelan kariyo wuxuu dagaal ka tiri karo ku qiimaysnaanaya kuma qiimaysnaanayo intuu sharaxaad iyo socsocod iyo isqalqaloocin uu samayn karay aan ku talagalna middaas